tani waa saacaddii ugu shaashada weyneyd ee ay samayso isla markaana soo bandhigto shirkadda Apple. noocan S4ka ah waa nooc asaasi dib loo nashqadeeyay isla markaana la qaabeeyay. dhinacyadeedu waa ay xardhan yihiin, waa ayna waaweyn yihiin. dhinac kasta waxa ay ku leedahay xog faahfaahsan taasoo aad looga fikiray. shirkadda Apple waxa ay sheegaysaa inay had iyo goor soo saarto isla markaana samayso qalab khaas ah oo tayo sare leh. haatan nooca saacaddan Series 4 ee Apple Watch waa mid awood sare leh. muraayadeedu waa mid si fiican u muujinaysa muuqaalada kala duwan ee Apple Watch. waxaa loo isticmaalayaa si aad uga sahlan ugana firfircoon abid. caqabadu waxay ahayd ballaarinta shaashadda iyadoo aan saamayn ku yeelanin xajmiga iyo dhumucda amase baytariga dabka. xuduudaheeda muuqaaladu waxa ay awood kuu siinayaan aragtida baaxad ka badan 30% weynaanta, halka farsamada cusub ee casriga ah ee lagu magacaabo LTPO ay sii wanaajinayso awooddeeda. meelaha sida gaarka ah loo qurxiyey waxa ay muujinayaan muuqaal dheeriya. tani waxay sidoo kale ogolaanaysaa aragtida iyada oo dultaabashada loo yaqaano touchka ay aragtida u fidinayso ilaa meesha ugu dhow ee oogada sare. haddaba si looga faa'iidaysto cabirada cusub ee Apple Watch waxaa dib loo cusboonaysiiyey noocan Series 4ka kaasoo u wanaagsan jalleecidda isha marka la isticmaalayo. qalabka Digital Crown-ka ayaa loogu talagalay inay ku socoto saacaddan Apple Watch, qalabkaasoo kuu suuragelinaya inaad isticmaasho adeegga ECG-ga. qalabka cabirka wadnaha ayaa qayb ka ah Apple Watch, wuxuuna kuu fududaynayaa inaad ogaato heerka garaaca wadnahaaga. baytariga Apple Watch waxaa loogu talagalay ugu yaraan 18 saacadood. Siciid Axmed Tamreyse, wararka telefishanka caalamiga ah ee Star.